salaamullaahi calaykum ku soo dhowaada xigmado kale oo xulah oo xiiso badan. saddex siyaabood ayay suuragal ku tahay inaan ku baranno xigmadda. marka ugu horraysa xagga ka fikiridda waana tan ugu wacan. tan labaad oo ah xagga iska yeelyeelidda ama wax horoo jiray qaadashadood waana tan ugu fudud. tan saddexaad oo ah habka tijaabada waana kan ugu adag uguna qallafsan. waxaa jira saddex arrimood oo dadka xigmadda badan ay ka cabsadaan: bad bilaa degganaan ah oo ay dabayluhu babbinayaan, habeen mugdi ah oo bilaa dayaxa, iyo carada qof degganaa oo xasiloona. dadka kale inaad barato waa caqli, laakiin naftaada inaad si fiican u barato waa xigmadda iyo caqliga dhabta ah. dadka kale inaad maamusho waa awood, laakiin in aad naftaada maamusho waa awoodda dhabta ah. ha u joojin noloshaada, rajooyinkaaga iyo hamiyadaada qaar oo aadan ku guulaysan awgood, sababtoo ah waqtiguba ma joogsado marka saacaddu hallawdo. edebta iyo usluubta waxaa ugu sarreeya in aad dhegaysato qof kula hadlaya, kuuna sheekaynaya, kaagana sheekaynaya arrintaasi oo aad si wanaagsan u og tahay ama aad u garanayso, isagu laakiin uusan ogayn. aan dhammaystirno si aan u gaarno halka aan doonayno. weligaa ha isdhiibin. laga yaabee ilbiriqsiga aad isdhiibayso ama aad quusanayso inuu yahay ilbiriqsigii ugu dambeeyey ee aad ku gaari lahayd halka aad u baahan tahay. gacanta ku istaajisa ee horay kuu wadda marka aad hantaaturooto waxa ay ka run badan tahay 1000 gacmood oo ku salaama markii aad gaarto halkii aad doonaysay. innagu ma kala tartiibinno boosaska dadku ku leeyihiin quluubteenna. ficiladooda iyo waxyaabaha ay sameeyaan ayaa arrintaasi maamusha. laga yaabee waxyaabaha quruxda badan ee nolosheenna inay soo dib dhacaan, laakiin waxaa runa in ay imaan doonaan. ha ka cabsanoo ha ka nixin qaladyadaada, sababtoo ah adiga basharka ayaad ka mid tahay, basharkuna waa ay qaldamaan. laakiin ka cabso in aad qaladyadaada soo celceliso kadibna aad ku andacooto oo tiraahdo waa qadarta Ilaahay. qofka aan ku farxad gelin kana cabsanin inaad murugooto, ogow qofkaasi ma aha mid mudan inuu ka mid noqdo noloshaada. in aad degganaantaada ilaaliso marka aad carooto, in aad farxad muujiso adiga oo aan dareemayn, in aad dhoolla caddayso adiga oo jecel inaad ooydo, in aad muhiimad siiso oo aad danayso dadka kale iyadoo qalbigaagu xanuunsanayo. middaasi waa awoodda dhabta ah. shumacu marka uu shidan yahay, shumac kale in lagu shido isaga khasaaro uma geysato. hadafku maahanoo keliya in aan guulaysanno, balse waa in aan ku kaalmaynaa dadka kale xitaa inay guulaystaan. ha u dadaalin inaad guulaysato oo keliya, balse sidoo kalena u dadaal inaad noqoto qof qiime iyo sharaf leh. ma jiro qof aanu murugo haynin, balse waxaa jira qof og in ay tahay oo keliya adduunyo suulaysa, markaas ayuu dhoolla caddeeyaa. hadallada dadku kugu odhanayaan waa sida dhagaxyada oo kale. ama waa inaad dhagaxyadaasi xambaartaa oo dhabarka ay ku jebiyaan, ama waa inaad dhagaxyada isdul saartaa kadibna aad ka dhigato buurtii aad horumarkaaga ku gaari lahayd. ha iska muugaysiin saaxiib dhab ah oo mar weliba ku daneeya, muhiimaddana ku siiya, sababtoo ah maalin baad ogaan doontaa in aad dhaymankii ku khasaartay intii aad ku mashquulsanayd ururinta dhagaxyada. suurtagal maahan in aad xiddigaha aragto ilaa habeenka mugdiga ah mooye. sidaa oo kale dadka qaarkood nolosheenna macdantoodu sooma muuqato ilaa xilliga dhibaatada mooye. xilliga aad dhibaatada ku jirto ayaa dad badan qiimahoodu soo muuqdaa, kuwo kalena hoos ayay u dhacaan. haddii aad i weyddiiso maxaad jeceshahay, waxaan kugu odhan doonaa waxaan jeclahay 4: saaxiibtinimo aan kala dheeraasho lahayn, qalbi aan qallalnayn, baaqi ahaansho aan isbeddelin, iyo jacayl aan dhammaan. weligaa gadaal ha eegin si aad u aragto waxyaabihii hore oo aad soo dhaaftay. haddii khayr ku jiri lahaa waxyaabahaasi hore, waxa ay noqon lahaayeen maalinta tan ee hadda aad joogto. qofka u noqonaya waxyaabihii hore ee uu soo dhaafay kadibna ka shallaynaya waa sida qof shiidaya cajiinkaasi oo ahaa mid hore u shiidnaa.
ha u dhaafin oo ha u fasixin dadka kale inay noloshaada midabeeyaan laga yaabee qaarkood inaysan gacmaha ku wadan ilaa qalin madow mooyee